dooxan dacarburuq ayaa waxa uu qabaa nafo badan oo Somaliland iyo hanti aad u fara badan iyo waqti dheer oo ay ku qaadato dadka isaga goosha bartamaha bariga iyo galbeedka Somaliland. xukuumadihii kala duwanaa ee soo maray Somaliland ayaan midina ku guuleysan inay xal u hesho dhibaatada dooxani ku hayo dadka. dooxa dacarburuq ayaa dhibaatadiisa waxaa sii kordhisay markii shirkadda la sheegay inay dhisayso ay dooxan bar ka mid ah ciid ku xidhay taasoo keentay in biyihii baahi lahaa ay isku soo ururaan isla markaana ay yeeshaan xoog iyo daafad aanay hore u lahayn. xasii dheer dadkii waa nin walba dantiisii ayaa sii kala go'an nin walba dan buu leeyahay waqti buu leeyahay ciyaal iyo maatiyo iminka meesha joogta waxa ka codsanaa mudane Muuse Bixi Cabdi waxa ka codsanaa bulshada ku dooratay ee shacabkii ka ooga tahay inaa wadada maadaama roob badan imanayo oo dhib badan imanayo inaa markaa birisho kale iska normaal oo lagu istaagi karo loo sameyn karo ayaa taa ka codsan lahaa. waxa weeyaan Cabdikhaaliq Cabdullaahi oo Maxamed awal bari xagaad ka timi waxaan ka imi Berbera xagaad ku socod Hargeysa dooxani ma aha markii koowaad uu xanibo ama uu qabto ma aha ilaa iyo 2000 iyo maxaan raadayeen labadii waxaan ka shaqeynayay Berbera oo reer Berbera ahaa markii hore reer Burcaan ahaa laakiin Berbera ka shaqeynayay waqtiga muddo 18 sano waa markii malaal 20aad ama 30aad ee uu xanimo waqti dheer oo dadkan kale uu xanibo waxa weeyaan de waa dhibaato joogto ah oo waxa weeyaan waxa lagama qaban karo waayinay waxaan u arkayaa de in la hagranayo fariintaadu waxa weeyaan biyahan de hal in la xiro oo dawladdu ay u samayso cilmi de oo waxa weeyaan dhaam loo sameeyo de in muuqata imaka adduunyadu waxay la ciirciiraysaa mushkiladda xanuunka la yiraahdo coronavirus ama covid-19 taasi waxay halkan iyaduna lafteedu halis kale ka abuuraysaa dadka faraha badan ee sidaa isugu dhegan ee tuban goobta taas oo loo aanaynayo dembigeeda inuu leeyahay dooxa iyo biriish la'aanta haysata dadka. si kastaba ha ahaatee ummadda reer Somaliland may tahli waayin in dooxan la sameeyo balse waxaa muuqata in dhinaca diyaargarowgu aanu marnaba ahayn halkii la doonayay. Cali Axmed Raabi, Cali Sanyo, dooxa dacarburuq.